Soomaalida waxay ku caan magaalada Baraawe laakiin ninka Baraawe u dhashay wuxuu ku caan Miini u leeyahay Miini macnihiisu waa magaalo dhibaatada hal sano haysto waxay ahayd sidaan ku iimaalaha marka ama Baraawe waa dhibaato weyn aan qabnay anagu jidka ma aan soo mari karin wadada aysan jirin wadada waa ogtahay riskiyaal badan ayaa ka jira aeroboortkan muhiimad weyn ayay u leedahay dadka reer Baraawe sababtoo access-ka dhibaatooyinka daraad ka dhacay fatahaada waa la imaan kara soo gurmin kara meel maramada jidadkiina qoladiina wadiidka ayaa fadhiyay badina lama soo mari karin magaalada Baraawe isbedelada maanta ka muuqato waa loo jeedaa xaqiiqatan Baraawe markii uu go'doon ku jiri jirtay laakiin maanta Baraawe maanta meel go'doon ma ahan qof walba oo caalamka joogo ama mana ay joogan mana dawlad goboleedaha noqdaan magaalada Baraawe inay soo booqan karaan oo ka tagi karaan airport loo baahnaa waay hadaan nahay Koonfur Galbeed sababtoo ah midda koowaad Baraawe waa caasimadda Koonfur Galbeed midda labaad waa isku ogtiin jidadku waa xiran yihiin saa u nimaano Baraawe waxaan u baahnaa inaan cirka soo marno marka haddii ay soo airport lahayn nama fududaa karto inaan nimaano dhibaatadaas ayaa airportka Ilaahay nooga raayay hadda hantidii oo nabad ah imaanayso waqti fiican ayaa hantideena noo imaanaysaa wax dhibaato maanta faa'iido aad u weyn ayuu airportka soo kordhiyay xagga ganacsigeena waxay ku fiican tahay dakhliga wax yar oo kor u kacay dadkana tirabate qof walba iska imaanaya kuwa dawadaha joogan oo iska imaan karaan anagoo kale koleba dadka meel hadii bataan shaqadana waa badane degmada Baraawe waa kana waad u jeedin inaa idinka sheekeyna ma aha idinka u jeedin ba ku soo dhawaada Baraawe magaaladiina magaalo ka fiican heli meeseen koleba Baraawe soo yaaca عاصمتي كفر قلبي بلا جنة براوة